kulankani Afurka ah oo ah mid sanadlaha isla markaana ay soo qaban qaabisay safaaradda Soomaaliya ee waddankani Kenya ayaa waxaa ka qayb galay ku dhawaad 50 safiir oo fadhigoodu yahay magaalada Nairobi xarunta waddankani Kenya mas'uuliyiin ka tirsan dawladaha Soomaaliya iyo Kenya mas'uuliyiin hore guddiga ganacsatada Islii jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankani Kenya martaraf kale oo kulanka lagu casuumay Danjire Jibriil Ibrahim Cabdulle iyo qaar ka mid ah diblomaasiyiinta safaaradda ayaa xarunta ku soo dhaweeyay safiirada iyo mas'uuliyiinta kale ee madasha lagu casuumay mas'uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta kulanka ka hadlay ayaa waxa ay ka mahadceliyeen afurka loo sameeyay iyagoo si wadajir u qiray in safiirka uu sare u qaaday xiriirka Soomaaliya la leedahay wadamada caalamka. I want to thank you very much, Your Excellency, and I'm sure your government is very proud of you because you are doing a wonderful job. The fact that you brought us all together here to meet old friends, make new friends, and share stories and make memories. You are all welcome. It is time for prayers, and have a safe journey, and keep Somalia in mind throughout when you are thinking about good relationships. Thank you very much. The relationship with the Somali community, both in Kenya and outside, to another level. And therefore, mine really, first of all, is to really say a big word of thanks to Jibril, as a friend, as a person I know very well. I had also the privilege of working with him a few weeks ago on the Somali-Kenya Trade Week, and I know how much he takes these matters personally. Danjiraha dawladda Soomaaliya ee waddankani Kenya Danjire Jibriil Ibrahim Cabdulle oo ugu dambeyntii kulanka ka hadlay ayaa waxa uu xusay in tani ay ka turjumayso muhiimadda ay bulshada Soomaaliyeed uga fadhiso safaaradda isla markaana uga mahadcelinayo diblomaasiyiinta iyo safiirada kale ee ka soo qayb galay kulanka. ma gaaray 40 safaarad wakiil laga yahay joogan mas'uuliyiin kale waaweyn waxay ka turjumaysaa muhiimadda safaaradda uga fadhida shacabka Soomaaliyeed iyo qadarinta ay u hayaan waxaa jira ganacsatada Soomaaliyeed ee ku noqol Kenya iyo ummadda Soomaaliyeed safaaraddu aad bay u garab taagan yihiin waana la shaqeeyaan hantiye ku baxshaan tale ku baxshaan caawada xafladda meesha ka dhacdan ayaga qayb ka ahaa ama mas'uuliyadeeda lahaa waxaan u mahadcelinayaa Islii Business Community hoggaankeeda waxaan kaloon asna farta ku fiiqayaa xildhibaan Yuusuf Xasan oo si garab joogta asna asoo community wakiilka la shaqeeyo waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baryaynaa nabad iyo barwaaqo waxaan kaloo rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu naga qaado colaadaha ay dib ka jiro wax lagu farxa ah aad loogu farxa ah hada markaan xilli waxaa jirta qofka Soomaaliga maruu ka soo horbaxo negative iyo aragti xun laga qabay hada markaan joogo magaaladan Nairobi safiirada la kulmayo waxa ugu weyn weydiiyo waxay tahay ganacsiga inta maraya maxaa qabateen sense of waxa jiro pride iyo respect nool dadka Soomaaliyeed loo hayo xaqiiqda taasna waxa mas'uulka ganacsatada Soomaaliyeed oo risk qaatay shaqeeyay wax qabtay waxna ka qabtay mataqan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo ku soo gabagabay hadalkayga wasaaradda arrimaha dibadda oo caawa soo dirtay ilaa mas'uuliyiin iyo senior diplomats oo gaaray 15 qofood oo caawna la afurayo muslim ah waana farx gelinaysaa waxayna muujinaysaa wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya iyo dalka Soomaaliya xiriir ka dhaxeeyo iyo meesha uu marayo muujinaysaa in heerkaas gaarto aan kaga mahadcelinaynaa ummadda Soomaaliyeed Ilaahay nabad keeno. waa sanadkii labaad inta uu joogo Danjire Jibriil ay safaaradda Soomaaliya waddankani Kenya qabanayso kulanka Afurka ah. Maxamed Macalin Xasan Waydka warbaahinta qaranka Nairobi, Kenya.